Haddii aad soo aragtay lamaane ku aroosay aqal Soomaali, guri, hotel, haddaba ma maqashay mise aragtay lamaane ku aroosay isbitaal? Waxaad isweydiinaysaa maxay tahay sababtu? Lamaanahan ayaa ka soo jeeda magaalada Kirindu ee waqooyiga dalka Burundi. Lamaanahan ayaa ah dhalinyaro, hase yeeshee mar qura waxaa shil galay ninkii, balse uma joojin wixii waqtiga iyo waayuhu keeneen ee sidooda horey u socdeen. Su'aasha isweydiinta leh, gaar ahaan ninkii, waxaa ku dhacay bishii la soo dhaafay Juun 30keedii ayaa mooto la gadoontay. Shilkaas ayaa dhaawac aad u halis ah ayaa ka soo gaaray ninkii arooska ku taamayay, kadib isbitaal ayaa la dhigay. Ninkii waxaa la hubin inuu dib u socon karo iyo in kale. Arooskuna waxa uu qorshaysnaa bishii Juulaay 4teedii. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii ayaa la noqon weyday in arooskeeda dib u dhigto. Waxay samaysay sida muuqaalka idinkaga muuqata. Isbitaalka uu ku jiray ee lagu dabiibayay ninkeedii ayay arooskeedii la timid. Baadarigii ayay u sheegtay, hase yeeshee baadarigii ayaa ka codsaday maadaama ninkeedu uu shil galay in aysan u labisan gabdhaha aroosyada oo kale. Tiina way ka diiday. Baadarigii waxay soo xiratay taashkii gabdhaha ay soo xiran jireen, kadibna xaflad weyn ayaa looga dhigay. Inta ninkii laga soo bixiyay qolkii xaaladiisa lagula tacaalayay, welibana suud ku soo dhacay. Hase yeeshee, dadkii xafladda loo sheegay ayaa soo buux dhaafiyay xafladdii. Kadibna ninkii caruuska ahaa ayaa aad ugu farxay, waxa uuna ka sheegay goobtii in arrintaasi jacayl dheeraad ah ku abuurtay.